هلا السلام عليكم خيري برواقة نرجعنا وفتحي عفسية ونصور ضيو كتبنا عرورتي baa halkan meel igu ciyaarayso waxna siniinta ka gaadsiyo sheeka cajiibo waxaan doonaynaa in idin la wadaago maalin dhaweyd la ii soo diray inan baa ii soo dirtay sheeka cajiibo igu qoslisay waxay tiri Fatxiyaay nin baan kala tagnay caruuraan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin intii hore oo dhan waxaan rabay in caruurtayda inaan iska korsado degdegima haynin laakiin waxay tiri bari dhexdaasaba inan baa ila soo xidhiidhay oo inankii wuxuu igu yiri walaal aad baan kaaga helay dhowr meelood baan kugu arkay waxaan jecelahay inaynu isbarano wallahi waxaan dhibay tiri bal waay heede muxume bal horta aynu mar kulano inankii waanu kulanay bay tiri oo wuxuu noqday inan runtii ay aad iyo aad uga dhacayso waan bayaabayba ismaan balhayn nin single oo saa isugu dhacayaaba meelahan ka dhow waxay tiri dabadeetana inankii waxaanu ku heshiinay inaanu deebal isira barano oo waqti isa siino waxay tiri inankii wuxuu noqday inan cajiiba isku darsaday qurux udgoon karti dhinac walba jamjamka ah waxaan ba isribay tiri laytal khadarkii baaba ilaahay ku soo diray rabadaantii dhaweyd wixii aad ducaysatay waa ka isagoo soconaya ilaahay afka kaaga soo galiyay waxaan ku ballanay inaanu isguursano inankii wixii anigu de maaragtay diyaar baan ahay inaan ku guursadaan doonayaa waxaan doonayaaba inaynu iska aqal galno waayahay sidaan qorshihii wadanayo arrintii meel fiican noo marayso maalintii dambe ila fadhiistay bay tiri wuxuu yiri heblaayo waxaan baahnaa inaan kula hadlo waa manaxay talo maxaa soo kordhay wuxuu yiri bay tiri walaal waad ogtay inaan ku jecelahay anigu inaan ku guursadaan doonayaa de laakiin walaal waxa fiicnaan lahayd inaynu sii dhadhamino wayda waa arrin aad iyo aad muhiim u ah naxdin iyo yaaba ilaahay keena bay tiri yaa isdhadhamisa walaal dhadhamadayda maxaad ku falaysaa ilaa waynuba go'aansanay inaynu isguursano waynu isjecelo waynu isdoonaynaa maxaynu iska sii dhadhamin dhadhamadu ma hadda tii dibnaha waxaan dhibay tiri walaal anigoo yarna waan guursaday muxuu ahaa qof dee ehludiinoo ilaahay ka baqaysana waan ahay anigu dhadhamood dee xaaraana diyaaru ma ihi wuxuu yiri bay tiri naaheedha dee xaaraan maahay la waynu isguursanaynaa waa uun dee waynu sii yara dhadhaminaynaa dee waxaan dhibay tiri walaal haaya haddaynu intaynu isdhadhamino midkeen qadhaadhaado ama aynu isu qadhaadhaano ka waran marka maxaynu samaynaynaa la guurka micnihiisu waxa weeye duuduubka la isku qaatee waxay tiri arrintii meel xun bay taagan tahay ninkiina waan jeclahay isagiina qardhab waxay kaga dhigsan tahay in aan aroos ku dhacaynin ilaa aanu isdhadhamino runtii aad iyo aadna way u muraar dilacsaneed waxay tiri dee maaragtay already jacayl buu igu abuuray oo iga keensaday meel waxaan dareemayaa in aanan joogin meel aan ka noqdo markuu igu hubsaday meel aanan ka noqon karinna inuu markaa xujadaa igu xidhay marka maxaan sameeyaa waxay soo xusustay heestii Cumar Dhuule oo oran jiray kalgacaylkan base dhaqsaygu kadiya korahaysare isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhinay adiguna kasdarano ikaadin weydo kohashada aan ku qabo ayay ka kadayse markuu ku hubsaday dee jacaylkii ayuu dabadeetana doonayaa inuu advantage ka qaato yiraahdo ilaa aynu isdhadhamino micnaheedu waa maxay markaa isdhadhaminta waxa weeyaan haddaan kaa heli waayo haddaad ila yara dhanaanaato si aan kharash iyo hawlo iyo aynaan u gelin aynu banaankeena uga kala noqono this is where we are today heerka aynu maraynaa maanta waa heerka hablihii la doonaya in waxa lagu sameeyo advantage laga qaato mid la yiraahdo video yar isoo duub adoo qaawan oo hadhowna lagu blackmail gareeyo mid la yiraahdo ku guursan maayo ilaa aan ku dhadhamiyo inta la soo xiro geliyo what is going on maxay nagu dhacay marka hablii Soomaaliyeed hadday cararaan
hadday gabadhaas haddeer intay baal yeelato duusho oo cararto ay tiraahdo I will never look back ma eed bay leedahay waxaasoo miidhan baa socda maanta I know in qaar badan ay odhanayaan raggu ma wada aha of course raggu ma wada aha laakiin maanta raggii waxaad moodaa intii badnayd inay waxyaabo aan habboonayn oo qurux badnayn ay kula dhaqmayaan hablihii marka anigu waxaan ugu jawaabay waxaan wala xaalkaagu waa jihaad weeyaan this is jihaadka micnihiisu wuxuu yahay waa markan oo kale haddii haddeerto ninkii waayo waa jeceshahay aad la seexatid ma tihid inan yaroo il duuftay oo maaragtay xaajo ka dhabaqday oo maaragtay la khiyaameeyey sheekadu way iska caddahay marka haddeeroo kale weeye marka jihaadku habboon yahay naftaada inaad jihaad la gashid wayda haddii aad samaysid dee waad kusii tala gashay wixii kaa raacaaba inay kaa raacaan dembiguu iska cad yahay oo dee waad samaysay oo waxa weeyaan maanta haddii waad u badheedhay oo maanta haddii uu markaa isbedeloo yidhaahdo anuu kaamaan helin sariirta igumaad qancinee nabadee dee waxa weeyaan adaa ka mas-uula tii lahayna meel bay kugu sugaysaa marka intay doontaba ha kugu qaadatee aad iska muraara dilaacdid sidii laxdii burcee waar ka dhaqaaji ku dheh yaa salaatal istiqaado ka tuko 7 ragcadood oo ah ilaahay bari inuu kaa masaxo ninkaa eri qoraxdiiba aad igu dhacday ninkaa eri baan ku yidhi markaa dabadeetana marka maxay idinla tahay yaa qoraxdii baan ka warwareegayaa maxay idinla tahay bal ka soo jawaaba arrintaa khayr iyo barwaaqaan idin rajaynaya nabada kuwiil doogsada bal quruxdaan ayaga maasha allah haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi